kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka warbaahinta xogta dalka idin haysta kuwada ugu doorka roon madaxweyne farmaajo oo digniin culus u diray madax lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin falal musuq faahfaahin dheer ah oo laga helayo qarax ka dhacay gaalkacyo oo waxyeello ay ka soo gaartay mas'uul Puntland oo amar adag dul dhigtay shirkadaha ganacsi ee ka howlgala deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan Boosaaso shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo si rasmi ah duulimaad uga bilaabaysa Muqdisho Jubbaland iyo Amisom oo arrin xasaasi ah ka wada hadlay wararka dibaddana waxa u dooron meedad laga helay magaalada Umdurmaan ee dalka Suudaan daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta xogta dalka idin haysta kuwada ugu doorkroon hase yeeshee haddii aad ku cusubtaa bartan YouTube-ka fadlan subscribe dheh oo guji gambalaalka like share noo dheh saaxiibadaada si wararkii ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda markaan soo galina bartan YouTube-ka ay u helaan markana ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa garoonka ciyaaraha kubadda cagta Banaadir Stadium kaga qayb galay xuska sanad guurada 59aad ee kooda Luulyo madaxweyne Farmaajo ayaa inta uusan tagin Koonis ka hor waxa uu baxdhigay taalada daljirka Daason taas oo lagu xasuusanayo halyeeyadii Soomaaliyeed ee wiilasha iyo gabdhaha lahaa ee naftooda u horay xornimada iyo midnimada dalka madaxweynaha ayaa salaan sharaf waxa uu uga qaatay garoonka Koonis cutubyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda waxaana halkaas socod ku maray shaqaalaha kala duwan ee wasaaradaha dowladda shaqaalaha gobolka Banaadir iyo artida kala duwan ee qaranka iyo kuwa degmooyinka gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in doonayaan inay baabiinayaan dhaqanka dadka Soomaaliyeed ee kala gooni-goonida ama beel ka dhigaya oo ay tuulooyinka iyo degmooyinka ay habbeeleed u degan yihiin isla markaana ay ka shaqeynayaan sidii dadka Soomaaliyeed u noqon lahaayeen kuwa isla nool oo isdhexgala lagana gudbo arrimaha qabaa'ilka dhanka kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in mushaaraadka kala duwan ee shaqaalaha iyo ciidamada dowladda ay bixiyaan tan iyo markii uu xilka qabtay kadib markii uu tilmaamay inay la dagaalameen musuqa madaxda iyo shaqaalaha dowladda ayuuna faray inay iska ilaaliyaan musuqa sidoo kale waxa uu ugu baaqay shaqaalaha kala duwan ee dowladda inay ilaaliyaan nidaamka iyo shaqada ay qaranka u hayaan waqtiga loogu talagalay ay shaqeeyaan wadaniyadu waa waxa ummadan iyo dalkan isku xiray waana ummadda kaliya ummadda Soomaaliyeed aan isku keeni karno maxaa yeelay waxa naga dhaxeeya hal dal oo wanaagsan Ilaahay nagu abuuray oo loo baahan yahay inaan ilaashano inaan difaacno sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno soddon sano ku dhawaad waa xaqiiq dalka inuu burbur galay waa xaqiiq dadku inay kala tageen waa xaqiiq dadku inay dib ugu noqdeen tuulooyin waxa loo baahan yahay inaan bedelno qaabkan u fakarno tuulo waa wax yar tuulo waa wax qoys tago laakiin dalka laga bilaabo loo yacado ilaa raas Kambooni adigoo haysta maxaa tuulo kugu ekeeyay tuulo maxaa kugu ekeeyay adigoo dhulka intaas leeg haysta adigoo badda intaas baaxadeeda leeg haysta waxa kugu ekeeyay tuulo oo tuulo uga jeceshahay dalka runtii waa waxa aan ka shaqeynayno inaan horumarino wadaniyada iyo wadan jaceelka qof walba oo Soomaali ah waxa laga rabaa inuu wadani noqdo dowlad wanaag waa waxa aan caalamku ka tartami karno waa bilawnay waxa daliil u ah inuu sheegay inaan sheegno inaan ku faanno musuqmaasuq inaan la dagaalno maxaa yeelay musuqmaasuq hadduu noolaado hadduu jiro mushahar lama qaadan karo inaan la dagaalno musuqmaasuq waxa cadeynaya inaysan hal bil nagu baaqan mushaharaadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida laakiin qof walba waa inuu ilaaliyo nidaamka qof walba waa inuu ilaaliyo shaqadu waxay tahay nidaamkeedu inuu ilaaliyo qofka waa inuu shaqeeyo oo uu shaqeeyo ma aha hadaa tahay shaqaale dawladeed ma aha in aad lagu siiyay wax la yiraahdo ceer ama welfare ma aha waxaad ka mudan tahay dadkaad ka mudan tahay waxaad tahay astaan baa tahay waxaa rabaa inaad subaxdii shaqada soo gasho aroortii waqtiga loogu talagalay aad ka baxdo siduu Ilaahay kugu og yahayna aad si wanaagsan u shaqayso waa ka hadalnay musuqmaasuqa waa cudurka dawlad burburiya waa wixiina burburiyay waa waxaan la istaagi weynay musuqmaasuq waa la dagaalaynaa waqtina ugu qaadanaysaa laakiin qof walba waxaan u sheegaynaa inay iska ilaaliyaan intaynan ceebeenin inay iska ilaaliyaan intaan la xirin waxaan idinku boorinayaa shaqooyinkiina inaad ka adkaataan shaqo wanaagsan aad ummadda u fulisaan ummadda in loo shaqeeyo hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo dhowaan mas'uuliyiinta canshuuraha garoonka cadde la horgeeyay xeeraalinta guud ee qaranka kuwaas oo weli ku jira xabsiga xarunta damibaarista booliiska ee CID mas'uuliyiintaas ayaa waxa ay kala yihiin madaxii canshuuraadka qaadka ee garoonka cadde Cabdi Maalig
madaxii qaybta canshuuraadka garoonka aadan cadde cabduuli oo inkastoo la sheegayo in xilkaas laga qaaday. qofka saddexaad ayaa ah ninka qaabilsanaa tirinta qaadka oo magaciisa lagu soo koobay Farxaan. qofka afraad ayaa ah madaxii qaybta xisaabaadka ee garoonka oo magaciisa lagu sheegay Cabdirasaaq. dowladda Soomaaliya tan iyo markii xilka ay qabatay ayaa waxaa hadal ku dhigyada caanka ay ku tahay kamid ah inay la dagaalamayso musuqmaasuqa. amar adag ayaa loo dul dhigay shirkadaha ganacsi ee magaalada Boosaaso. taliska booliiska gobolka Bari ee Puntland ayaa waxay amaro dul dhigeen shirkadaha ganacsi iyo goobaha waxbarasho ee ku yaala guud ahaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. amaradaas ayaa ku socda ganacsatada, hoteelada, shirkadaha warshadaha barafka iyo biyaha iyo maamulayaasha goobaha waxbarashada ee Boosaaso ayaa lagu wargeliyay inay soo diiwaangeliyaan shaqaalahooda. taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa ku amray shirkadaha ganacsi iyo maamulayaasha iskuulada inay soo diiwaangeliyaan shaqaalahooda sidoo hadalka u dhigay. saxaafadkan wuxuu daaran yahay ganacsatada Boosaaso dhamaanteed waxaan ku amreynaa maanta ay taariikhdu tahay 1 bisha Luulyo 2019 waxa laga rabaa dhammaan shirkadaha ganacsiga, hoteelada, kuwa hurdada, kuwa cuntada, shirkadaha barafka, biyaha, garaashiyada, gaadiidka iyo alxanlayaasha, shirkadaha gaadiidka safarka, shirkadaha maxjarada xoolaha, dhammaan isgaarsiinta waxa laga rabaa shaqaalaha u shaqeeya inay soo diiwaangeliyaan oo nin waliba laga rabo afartiisa magac shirkadda intuu shaqaynayay, cidda damiinka ka ah iyo lambarkiisa iyo laba sawir baa laga doonayay. shirkadaha iyo hodheeladu iyo ganacsatadu inta badan waxay dhahaan hodheelkayga baa la soo galay, dad baa laga qabtay, dadkii baan doonayaa. su-aasha ugu horreysa markaa weydiisana laba su-aalood Cabdulaahi Cismaan ma dhaafin karo. nin walba oo mas-uula isaga ka mas-uula cidda u shaqaysa, isagana ciddii mas-uulga aan leeyahay inuu soo diyaariyo. waxaan faraynaa maanta laga bilaabo 15 beri bay xaq u leeyihiin. 15 beri baan siinaynaa ganacsatada. 15 beri qofka waxa laga doonayaa sifaha aan soo sheegnaa laga doonaya. ganacsatadu iyadoo mahadsan waxaan rabnaa waqtiga inay ku soo dhamaystiraan. wararka laga helayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in qarax qasaare geystay uu shalay galinkii dambe ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. qarax ayaa waxa dhawaqiisa si weyn looga maqlay xaafado ka tirsan Gaalkacyo, isla markaana waxa uu ahaa mid lagu soo xiray gaari nooca raaxada ah oo ay Soomaalidu u taqaan Nooha. qaraxaas ayaa waxa lagu soo xiray gaari uu lahaa taliyaha saldhigga booliiska Gaalkacyo Cawaale Nuur Roble, isla markaana waxaa ka soo gaaray dhaawac waxaana loola cararay isbitaalka weyn ee magaaladaas si halkaas loogu daweeyo xaaladiisa caafimaad. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in goobta uu falka qaraxa uu ka dhacay ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska gobolka Mudug, halkaas oo ay baaritaano kala duwan ay ka sameeyeen, iyagoona la sheegay inay xireen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa goobta uu qaraxa ka dhacay. macadda mas-uuliyaddaas koox sheegatay iyadoo aan la ogeyn natiijada ka soo baxay baaritaanka ay sameeyeen ciidamada booliiska gobolka Mudug. kooxda Al-Shabaab ayaa badanaa sheegato falalka qaraxyada iyo dilalka ka dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya deegaano ka tirsan. Jubbaland iyo Amisom ayaa waxay ka wada hadleen la dagaalanka Al-Shabaab. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Abduqaadir Xaaji Maxamuud ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada Kenya ee ku howlgala magaca Amisom. kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xildhibaanada iyo wasiirada Jubbaland, waxaana looga hadlayay arrimo ku saabsan amniga Jubbaland iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida hadalka loo dhigay. qodobada ugu muhiimsan ee kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa in ciidanka Amisom iyo Jubbaland ay ka wada shaqeeyaan in la dagaalanka Al-Shabaab si wada jir ah looga qayb qaato, oo ay sheegeen in dhawaan guluf dagaal ay bilaabayaan. warar hoose ayaa sheegaya in Kenya ay Jubbaland ka dalbanayso in ay ka gacan siiso doorashada la filayo dhawaan inay ka dhacdo deegaanada maamulka Jubbaland. ugu dambeyntiina daawadayaal, shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways ayaa si rasmi ah duulimaad uga bilowday Muqdisho. shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa shalay si rasmi ah magaalada Muqdisho uga bilowday duulimaadyo toos ah, iyada oo ah mid ka mid ah diyaaradaha shirkadaas ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha Cadde Muqdisho. munaasabad lagu daafuray duulimaadka tooska ah ee shirkadda Qatar Airways ka bilowday Muqdisho ayaa lagu qabtay garoonka Cadde, waxaana ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, xubno ka tirsan dowladda, danjiraha dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa rakaabkii ugu horeeyay keentay Muqdisho
kuwaas oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib iyadoo rakaab kale ka qaaday Muqdisho. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in duulimaadida shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ay toos u noqon doonto magaalooyinka Muqdisho, Dooxa, iyadoo oo toddobaadkii Muqdisho imaan doonto ilaa 3 jeer. shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa ah shirkaddii afraad ee duulimaad heer caalami ah ka bilowday Muqdisho, waxaana horey uga bilaabay shirkadaha kale ah Ethiopian Airways, Turkish Airways iyo Air Djibouti. halka warkaas daawadayaal idinkaga imaanayo waa warbaahinta xogta dalka. markana wararka dibadda. meedadka 3 qof oo rayid ah ayaa laga helay magaalada Umurdurmaan ee mataanka la ah caasimadda Suudaan ee Khartoum, hal maalin kadib markii banaanbaxyo dhiig ku daatay ay ka dhaceen qaybo badan oo kamid ah dalka Suudaan. banaanbaxa looga soo horjeedo xukunka militariga ayaa waxaa ka qayb galay 10,000 oo ruux, kuwaas oo dalbaday in militariga ay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayid ah. wariyaasha ayaa ku soo waramaya in meedadka laga helay Umurdurmaan ay yaaleen meel u dhow soonkii uu ka dhacay banaanbaxyada. warkii oo xilligan daawada la idinkaga imaanayay warbaahinta xogta dalka waa naga intaa.